guddoonka golaha shacabka ayaa xildhibaano rasmi ah u aqoonsaday 16 xildhibaan ee lagu soo doortay degmada Ceelwaaq halka ay waxba kama jiraan ka soo qaadeen 16 kursi ee lagu soo doortay Garbaharey taasoo dhabarjab ku noqonaysa madaxweyne Farmaajo oo doonayay in la isla tuuro 32 xildhibaan ee ka yimid gobolka Gedo ama dib loogu noqdo doorashadooda qaraarkan ayaa looga gudbi doonaa khilaafkii matalaadda gobolka Gedo waxayna ka dhigan tahay in Farmaajo uu ka qadi doono codadka xildhibaanada beeshiisa marka la gaaro dharaarta doorashada ee Afisyoone bacdama uu garab iyo gaashaanba u ahaa aqoonsiga xildhibaanadii Garbaharey gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyihii ku meel gaarka ahaa Dhabancad iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa isku raacay in la meel mariyo xildhibaanada Ceelwaaq oo ay caqabad ku noqdeen xildhibaano ka soo baxay Garbaharey oo dhowr jeer buuq iyo sawaxan ka dhex abuuray fadhiyada golaha shacabka guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo soo saaray warmurtiyeed rasmi ah ayaa sheegay in xildhibaanadii lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ay ku soo baxeen habraacii doorashooyinka ee ay meel mariyeen guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal ayna sax ahaanshahooda xaqiiqsadeen markii ay arkeen inay doorashadooda ka qayb galeen guddigii doorashada heer dowlad goboleed dhinaca kale guddoonka ayaa gaashaanka u daruuray xildhibaanadii lagu soo doortay Garbaharey oo ay sheegeen inaysan haysan shahaadadii guddiga hirgelinta doorashada ee heer federaal doorashadoodana aysan goobjoog u ahayn guddiga doorashada dadban ee heer Jubbaland gobolka Gedo oo in muddo ay ku herdamayeen Farmaajo iyo Axmed Madoobe ayaa soo ahaa xudunta khilaafaadka doorashooyinka dalka balse waxa maanta guul loo halgamay la hoyday Axmed Madoobe oo ay u meel martay doonistiisii xildhibaanada Ceelwaaq 16 xildhibaan ee lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ayaa 275 mudane ka dhigi doonta tirada golaha shacabka ee la filayo inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya musharaxiinta mucaaradka oo halgan u galay aqoonsiga xildhibaanada Ceelwaaq ayaa tirsanaya codadkooda dharaarta doorashada waana kudlad ka mid ah baarlamaanka oo la aaminsan yahay inay jaangoyn doonaan doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda marka laga soo tago madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe Siciid Cabdullaahi Deni oo ah musharax madaxweyne ayaa ah siyaasiga labaad ee libin ku sheegan kara aqoonsiga ay heleen xildhibaanadii lagu soo doortay degmada Ceelwaaq kaasoo dadaal xoogan ku bixiyay in Axmed Madoobe uu soo xusho kuraasta gobolka Gedo kana shaqeeyay in la xalaaleeyo si uu codadkooda u manaafacadsado doorashada 15 May madaxweyne Farmaajo oo aan jeclaysan doonin meelmarinta xildhibaanada Ceelwaaq ayaa ku khasbanaan doona inuu faraha ka qaado matalaadda gobolka Gedo oo muran badan uu hareeyay tan iyo goortii la doortay bacdama guddoonka golaha shacabku ay qaraarkooda ku diideen rabitaankiisa kuraastii lagu soo doortay magaalada Garbaharey mucaaradka isbedel doonka oo dhan ayay ishaaro iyo naruuro wanaagsan u noqonaysaa inay doorashada madaxweynaha ka codayn doonaan 16 xildhibaan oo uu dagaal adag la galay madaxweyne Farmaajo wax cod ahna uusan ka filanayn